بسم الله shirka maanta waa shir aad iyo aad muhiim u ah loo baahnaa in wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadana mahad weyn aan u hayno maaragtay inay qabanqaabisay shirkan noocan oo kale oo hore u dhicin beryahan dambe sanadahan dambe wuxuu ku saabsanaa erey bixinta af soomaaliga sidee maaragtay loo kobcin karaa sidee loo casriyeyn karaa sidee maaragtay af soomaaliga ula jaan qaadi karaa afafka adduunka qoraal ahaan loo adeegsado marka waxaa jirtay cid walba dhinaceeda ayay wax ka baaraysay 72 waxaa la bilaabay erey bixinaa la sameeyey oo wasaaradaha iyo waxbarasho iyo waxaasoo dhan loo sameeyey marka erey bixinadaas meelay sidaas ugu duugoobeen ay ku kaydsanayeen erey bixinadaas aad iyo aad ay u fiican yihiin laakiin laba shay ay ugu baahan yihiin midoo in la saxo la turxaan bixiyo mid labaadoo in maaragtay la joogteeyo oo waagaas 70-meeyadii teknolojiyada maanta taalla ma yahay marka erey bixinada dhan ayaa waxaa ka maqan teknolojiya wax la yidhaahdo iyo waxyaabo badan oo cusub oo soo baxeen gadaashan marka hakad weyn ayaa ku jiray waxaa jira dad badan oo isku dayay inay erey bixino ay u sameeyaan nin walba dhinaciisa wax ka waday ma midaysana layskama warhaya waxaa la rabay marka xukuumadda soomaaliyeed dowladda soomaaliyeed aan maaragtay u jeedinaynaa shirka aan ugu jeedinayna waxay tahay inay isu keenaan iyaga waa dadka isu keeni karo labada akademiya oo hawshaan ay wadaan iyo soomaalida kale aqoon-yahanada kale oo nin walba iskiisa u wado soo bandhigo iyo maxaan ku yidhaahdaa aqoon-yahanada wasaaradaha ka shaqeeya intaas inaan isbiirsano maaragtay ayaa waxaa soo baxaya maaragtay erey bixinno kuwii hore waddadaa sameeyey kanna waa la sameynaa laakiin waxaa maqan maaragtay rabitaan adag iyo dowlad oo maaragtay si dhab ah u soo jeesato oo arrintan qabashadeedii fulinteedii iyo wixii maaragtay looga baahan yahay dowladdan ayadana kaalinteeda ka qaadato waxaan hubaa in afkan maaragtay kobcaya horumaraya noqonaya af casriyeysan lagu gudbin karo ereya oo maaragtay ama fikrado oo soomaaliga aan hore u jiri jirin lagu gudbin karo sida afafka shisheeyaba ay hore u sameeyeen ayaa loo samayn karaa af oo cilmiyeysan u dhashay ma jiro ciddii afkaas leh ayaa ka dhigata marka hadda inagayna jirtaa inaan ka dhigano